بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وناكسن إذا لهانتين بعدك أنا دقيسنا يكون نداونا يو وأمريكا برنامج كأني جونجار برنامج كأنه جونجار وعن كل الاستعدادنا اسمي دامية صدق إلا باتنكي بيشي شنات سنة كلا بدي يكون يسقالي طبعاً اللجوء قبتي دقمة الجروحال قبل كجلجدود كاسو دونية إنه يسكوخر هي مناسبة ده يدينا يل الموجودين كالسنة والجماعة محمود عبد الرحمن وويل دليرها وهي كوحدة على الشباب والدياريين إنه يسكو قرحية مناسبة أهل السنة والجماعة كما موسيين دليردي وقريوتي دقالدي أي لقلين على الشباب محمود وحالقو سو ديارية مقالة البور هالكاس وقصو جايسين يسكو قرحية ومثل نبدا كو قبسين يسي حفلد وحانا لكيري ميل دولات كردوسة مريبا هالكاس وكاقادين ديغانكا ولغو مقاحبا حالي دوبا نور كاسو ها gacansiyo ugu weynaa al-shabaab ee u fudeeyay qaraxa in la soo galiyo Gurceel halkan waa goobtii uu doonayay inuu isku qarxiyo Maxamuud waxaana uu sharaxayaa sidii uu ku soo galay cid hor istaagtay wadada tan ka soo galay markaas inta la wareegto wadada magaalada xaafadan gadaasheedan soo maray xaafadan soo maray asaan istaagay halkaas gabdho dhoobna gabdho agtooda istaagay asaan damcay meeshii inaan ka soo gala nina wuxuu u dhahay inuu askari meeshan lama ogole gabdho dhaxdooda lama gali kara jooji markaas aan ka soo wareegtay qura halkaas ku yaal agtiisaan istaagay qura agtiis markaan istaagaan abaar aan taagnaadaan ka soo wareegtay haddana waa ka soo wareegtay waxaan ka soo galay dhinacan kale ka soo wareegtay dhinaca haddana gabdhaha safnaa waan ka soo galay waa iska dhaaf waa laabtay qura agtiisaan iska fadhiistay abaaraan meesha fadhiyay xaaladii markii khudbadii wixii say u socdeen ay gabagaba ay tahay dadkan isla istaagi rabaan aan jaanis aan helay dhaxdan aad iska maray saa u socday dhaxdan saas u maray kadib dhaxdaan istaagay markaan istaagay waa joogan kala fiiriyay anoo socdo ma arkino meeshii gal raba yarkad aan ku sheega wuxuu dhaynay meeshan lama ogolo gobaan qaadir raba iga leexan marka anaga hor u soconayna meeshii aad ugu dambeyn aad timid halkaas ee Soomaa halkaas ee taa haye halkaas markaan istaagay kadib anoo meeshii ma istaagayna waa socday anoo sideed u socdo ma aragtay aan mid kana ay dhahnay jooj meeshii lama ogolay gobaan qaadir waan dhaxsan ku sii orday haye waa ka soo wareegtay dhinaca kale u wareegtay aan orday haye markaan orday badhankana aan taabtay meeshii markaan sii قجوا ده هم لنا مركز ماشي ساسي حقيقة كانت مركز بدن كتابني هل كان أرضي سانا أرضها هي وأنا كأرضي ماشي كصعد مركز ده قاعد ربتي هنا مركز أسكو قرحت حقيقة فديان سانا أفديان هرتي سان أفديان هي واقفتي واقع مركز هل كانت كأرضي هل كان إيه دويشان كأرضي ساسا أرضي أنا أرضي مركز بدن كمركز تابت سان أنا أرضي بدن كان أنا هيها ساسي قجوا ده ساسي اليوم محمود مرنا ما وصل فيلين إنه كفشل ما يقرحن وحنا ويشجعين وجد كيسوعين ولا كلمة تضبعتني يلا بحور العين سيدا وامسي هاي وحنا الله شجعين مركا وجنة تجو أي قبل حور العين كسو دوين دونان هالسو نينك استو مؤمن نينك وير نينك حور العين سسوق تودا يشجعان نينك وير مؤمن ودنت لو ناقة ودن بس لو ناقة ولي موقتها نينك شهيد كانت تضبعتني اللي هو مركا taas waa mooyee nin hada nin qaas ku tahay ma walahan nin kasto muumin ah dhanto askale horaan laakiin shahiidnimadu ka fadla dhaanta bas haka markuu hoos socotay 72 محمود isaga ayaa doortay inuu isqarxiyo laakiin goobta uu isku qarxinayo go'aankeeda isagu ma lahayn waxaase lagu qanciyay in goobtan ay tahay halka ugu mudan ee uu isku qarxin lahaa iyadoo loo sheegay inay joogaan dad aan muslim ahayn waxa jooga leeyahay dhahay nin shiici nin oo hadda ka hor wuxuu dhahay leeyahay nin
dad badan oo dad qoyskooda u yimid baadiyo jooga asa dadkii waxay sameeyeen neef geel ninkan karaamadiisa arkayna ay dhaheen neef geel ay qaleen asay qoorta ka gooyeen qoorta markay ka gooyeen waxa la sheego ma maqashaa niyow geeli waan qalne ninkii iska lahaan wuxuu dhahay geelay mooyee wax kala mar raba neefkii iga qalin baan rabaa adaana karaamo leh noo istaaji asuu dhahay qul biidnillah qul biidni biidnillah tamam biidni geeli sidii uu dhahay ninkaas kaas waayo leeyahay marka muuqaal hadalkiis ma aan maqlin laakiin sabir ahaantiisa lagu tusin bas maxamuud waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in jaakada qaraxa looga soo dhiibay deegaan lagu magacaabo Buula Falaay halkaas oo lagu siiyay tababar kooban oo la xiriira sida jaakada loo qarxiyo kadibna uu soo aaday deegaanka Buqda Hiiraan halkaas oo ay xaaskiisa joogto waxaana uu dhigtay qaraxa gurigii uu deganaa iyadoo aysan ogeyn xaaskiisa taas oo ay dagar kale oo khatar ku galiyay nolosha qoyskiisa Buqda bilan joogay gabar aan qaba meesha degneed sidaan ku joogay saan u joogay kadib bil markaan soonka markay bishii soonka uu soo dhawaan soo dhaqaaq galab ay tahay soo wacay xagee joogtaa soo buq ma joogtaa haddaan ku imaana lagu dhahay gaari yar ay yimid alaabtaan soo qaatay soo bax alaabtaas diyaargal alaabtaan soo qaaday lagu dhahay sidii aan gaari ku soo raacay wabigaan yimid wabigaan ka soo gudbay gaariga waa iga laabtay gaari kale hadana soo qaaday soo isoo wadi ma koriyo habeenkii aan ka soo casheeyay waan ka soo baxnay habeenkii aadan yabaal meel ay agteedan seexani subaxdan salaad soo markay soo dhawaadaan ka soo dhaqaaqnay kadib waxa ceelbuuran sidii ku yimid ceelbuur markaan yimid wixii arrimaha la ii sheegay waa wadaad sidii ku daa ma tusin boorsay ku jirtay meel aan iska dhig aydan boorsada iska ilaaliyaan ahna taabanaa man ogeyn waxa ku jireen wax inay aragteen kale aan maqon inay aragto ma ogeyn laakiin ma ogeyn jaakada qaraxa ee uu dhagar qaba maxamuud watay waxa uu ku sheegay inay ka kooban tahay 3 qaybood isla markaana lagu qarxiyeen 2 nooc oo kala mid uu isagu qarxin karo iyo mid meel fog laga qarxin karo 3 qayb ay leedahay qayb laba dhinacaan iyo hal dhabarkaan ay leedahay halaasna waxay la eg yihiin waxaan ku qiyaasaa hadda halahan marwa mid kasta halaha Soomaaliya sunteeda ay ku jirto waxa ay ku jiraan ay heed kadib ayaga abahay hadii inay ku tusaan inaad aragtan waa laga yaabaa waka taas heed marka leedahay qaabka sida lagu masjaaka aad waayo loo gashanaa dhar ahaan loo gashanaa shar ama loo gashanaa si jeeray leedahay sana loo xiranaa hagitaan way leedahay mid wal marka ay kidibto qaj ay dhaxad telefoon laga soo waca meeshii marka maalintaas waxay ahayd telefoonka aan la soo wici karin telefoon mamnuuc waa la markaas ka hor lagu dhawaaqay nin wajigu qarsaday oo ka socday kooxda al-shabaab ayaa maxamuud loo soo diray si uu ugu sawiro inuu janno galayo marka uu isqarxiyo kadib wuxuuna ku qiyaasay sababta uu wajigiisa u qarsaday cabsi uu ka qabay in la aqoonsado wax walba muddo badan wax dad u soo aqriyo la qabto arka u maleena wuxuu isla ninka hadii la qabto sida hadda igu dhacday amal hadii la qabto inuu ku sheega mas'uuliyadeedu arka calaamad uu ka bixi darteed iska qarina Gurceel waa magaaladii ugu horeysay dalka ee al-shabaab ay dadka deegaanka kula dagaalamaan iskana xoreeyaan waxaana looga dilay kooxda al-shabaab horjoogayaal muhiim ah haddana waxay noqotay magaaladii ugu horeysay ee garbaduub loo qabto qof qarax ku xiran yahay kadibna laga hor istaago inuu ismiidaamiyo ismiidaamiyaha la qabtay ma aha nin deegaanka u dhashay ama laga yaqaan waxayna u ahayd Gurceel markii ugu horeysay uu yimaado waxaana hagayay dad deegaanka uu ka mid yahay ninkan Cali Dhubad Nuur Siyaad oo isna ay qabteen ciidamada ammaanku Cali Dhubad iyo ismiidaamiyaha waxa isku xiray nin magaciisa uu ku sheegay Xaaji oo ka tirsan al-shabaab kuna sugan Ceelbuur kaas oo u soo diray Cali qadar lacag uu ku bedeshay inuu ku xasuuqo shacabka iyo waxgaradka Gurceel oo ay ku jirto hooyadii isaga dhashay Cali waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in isagii Xaaji uu isku xiray adeerkiis kadibna uu adeerkiis ku wargeliyay in nin qarax ku xiran yahay loo soo dhiibay balse adeerkiis ku amray inuu qabto hawsha loo diray أنا مكاس مدة لحبة لقيت شوقه nin adeerkay soo wacay
ninaan kusoo wacaa yiri ninkaas waxaan rabaa yiri inaan la shaqeeyo kabacdi markii ninkii uu soo wacay markii uu soo wacay muddo ma qas 3 bari soo wacayay kabacdi waxaan go'aansaday xamar aan bilad ka yeeshay xamar soo wacay hadi meel badan ma maray wadamadan mar uu soo wacay mar uu soo wacay oo dambeyntiisa soo ninkaas oo xiriirkaas oo aan kala yeesho qof kale oo urkaas oo xiriir aan leeyahay ma jiro waa jirtaa lacag $200 oo nin liiraado oo igu soo aan duqal waxaan rabaa safaraan rabaa xamar aadam 3 bari ka aqaanay duqal waxa yiri wala ku soo wacay ana ku soo wacay sug nin liira xaaji ki oo bari xaaji الله لا بقول دورنين إيجا أمري حسن ولا ده حسن إلاي ميل أنا كنت لعبت حن وقعت أو در يعرو إلاي دكتور در وقعت در لو كوي در لو جود أنا لعبت وقعت سلك حاجة أسي هذا نكاس لعبت بقول كنت يسوى دراي هنيكي سلبت بقول كنت يسوى دراي جول كأدو يري كورنا عليه هيا جول كأدو يري الصواب حي من 3 صواب حي 3 4 aan joogay habeenkiis khamiis soo galay Mayran Faarax Cabdi waa hooyada dhashay Cali Dhubad waxay joogtay goobta wiilkeedu keenay ismiidaamiyaha waxaana uu ninka qaraxa lagu soo xiray dadka uu rabay inuu dilo kamid ahayd hooyadaasi dhashay soo korisay Cali Dhubad waxayna hooyo Mayran hadda ku doodaysaa in wiilkeedu uu doonayay inuu iyada xitaa dilo anigii dhalay oo 10 bilo urka ku qaaday oo 2 sano uu naaska yahay oo 3 bilo 3 sano kala nabarka ku siday anoo meeshaas dhigo intaan oo dhalayna oo asaga ilaahay ka soo gooyeen inuu meesha dhigo waxaan oo dhan waa joog laantan wala gurguureeyo waa dhax fadhida tan midaan haye Leyla Maxamed Salaad oo xaaska u dhaxda Cali Dhubad waxay ii sheegtay in ninkeedu uu guruceel iyo 2 maalin ka hor intaan la qaban ismiidaamiyaha uuna baxay maalinkii qarax u dhaxayay salaadii subax waqtigaas oo ahaa markii uu ismiidaamiyaha doonay wuxuu ku soo laabtay 2 habeen ayuu joogay maalinta qaayanda oo dhacayo muxaadarada la qabanayay habeenkeedii la qaban qaabinayay habeenkii horeeyay oo soo hoyday xilliyadan kale oo imaan habeenkii masla joogteen habeenkii guriga ku bariyay ana suxur kariiso habeen maqal habeenkii casho dhaqdhaqaaqa habeenkii wax dhaqdhaqaaqa anigu ma aan arkin wuu seexday xilligii salaada subax la tukanayay ayuu buu naga soo tagay salaad subax markii la tukanayay salaad subax naga bax Marwa Leyla waxay sheegtay inay ka argagaxday markii ay ogaatay in ninkeedu qayb ka ahaa isku dayga weerarka fashilmay ee Guruceel waligay wama aan shkin hal mar oo saacadaha ilaahay kamid inuu cali al-shabaab yahay ama oo waligay oo ashaab la shaqeeyay xitaa hal saac oo saacadaha ilaahay kamid wama aan shakin ilaa ciidanka ay imaadaan xitaa taliyaha ciidanka markuu ciidanka askarta ay guriga noogu imaadeen taliyaha waan weydiiyay taliya maxaan dhacay oo naga raadinaysaa ma ku iri wuu su'aalo wuxuu yiri soo xaaskeen gurigan gabadha degan batiida uu yiri haabaan ku iri ninka xaaskiisa ma tahaba uu yiri haabaan ku iri waxba ma jiraan uu qosla taliya wuxuu yiri waxba dhib ma jiraan baaris baan wadnaaba uu yiri sidaas ayaan qabardaar uga ahaa ilaa iyo xilli dambe aan maqlay asaga ayaa waa warkaas wuu cadaaday waan maleysay wax suurtagal ah ila noqon weysa wax inaba ha yaraatee suurtagal ila noqon weysa warkaas hooyo Mayran iyo Marwa Leyla waxay si isku mid ah dawladda uga codsadeen in Cali Dhubad laga cafiyo qaradkii uu galay waxaan ka codsaa oo ag fadhiya oo gacnaha uga hoose inay soo daayaan waxaa tabar uma haya ana tabar mari inay soo daayaan aan dawladda sharafta ka codsaa oo u hor fadhiya maxkamadda sharafta la gudoomiyaha maxkamadda xeer alaaliyaha maxkamadda qaranka waxaan ka codsanaynaa bini'aadanku way qaldamaan intaan alle iyo malaa'iktiisa iyo kuwa macsuumeenta inta macsuumeenta ah way qaldamaan anaga bini'aadan ayaana qofka bini'aadanka gaf uu ka dhici karaa waxaan ka codsanaynaa inay buugan xariista u baaraan Cali Dhubad noona soo daayaan oo xorriyadiisa dib ugu soo celiyaan qoyska Cali Dhubad oo aan ku booqday gurigooda Guruceel waxa ka muuqatay duruufo adag oo dhinaca nolosha tii oo dheereed magaxuma ay ka dhex dareemayaan bulshada Guruceel maadaama qof qoyskooda kamid ah uu hadow ahaa ismiidaamiyay doonayay inuu Guruceel isku qarxiyo barnaamijka Gungaar waxa uu sidoo kale goobjoog ka ahaa fursad ay nisa galmudug ku siiyaan qoyska Cali Dhubad inay ku booqdaan xabsiga taasoo kamid ah xuquuqaadka asaasiga ee muwaadinka soo leeyahay
maxamuud cabdiraxmaan oo ahaa ismiidaamiyaha la qabtay waxa uu waxbarashada asaasiga uga tegay dugsiga dhexe waxaana ku biiriyay al-shabaab macalinkiisii dugsiga qur-aanka halkaasoo ah meesha laga tashkiiliyey kadib aan dugsiga iska dhiganahay saa u dhiganahay dugsigii qur-aankii aan dhameeyey mar labaad aan ku celiyey kadibna macalinkeena al-itixaad u ahaa kadib asna miisha jihaad iyo shabaab inoo tashkiiliyey kadib sidii aan ku raacay 2014 aan raacay bishii shanaad kadibna waan soo baxanay hiiraana imaaday tababarka hiiraana ku qaatay hiiraana ka soo baxay hiiraana muddaan joognay hiiraan kadibna hiiraanan dagaalkii ugu horreeyay waxay ahayd burundiyan uu gale annalaa kisma aan galinay taliskaan joogay rigaa gale mar aan weydiiyey waxaa loogu sheegay maxamuud goobta lagu qabtay ee Gurceel uu doonayay inuu isku qarxiyo waxa uu sheegay in halkaasi loogu sheegay inay ka dhaxayso munaasabad lagu magacaabo maalinta shuhudada oo lagu xuso halgamayaasha Ahlusunna wal Jameeca ee geeriyooday iyagoo la dagaalamaya argagixisada al-shabaab dhusmareeb haday ka dhicin Gurceel waayo dhusmareeb hadaysan noqon Gurceel waayo labadaas meel waayo haday dhusmareeb ay ka dhigaan dhusmareeb ay ka dhigi waayeen Gurceel ay ka dhigaan meel isku imaadaan waayo waxay ku qabtaan wadaay maalin ay dhahaan shuhadadu waay ragii markii hore shabaab ay la dagaalantay ku dhaawacmay wixii ku tagay shuhadada la xusaab ay dhahaan markaas saas uu sheegay kadib waa sidii maalinta habeenkii damagaari la soo qaaday galabnimaan soo baxay halgaras markaas bartii uu tilmaamay meeshaas waaye ninaan dhusmareeb ka wada meesha ku geeyna ninaan ka sii wada meesha ku geeyna aadba kolba waxa lagu sheegayo waa ka soo wada ismiidaamiyuu markuu yimid goobtii isku qarxin lahaa waxaa ku adkaatay gelitaanka goobta waxaana dhowr mar xiriye ciidamada ammaanka goobta balse isagu waxa uu ku dooday inuu doonayo gabay inuu ka tiriyo munaasabada taasoo ahayd xeeladuu doonayay inuu ciidamada ku qiyaamo si loogu ogolaado inuu si fudud ku galo goobta ninkaan hadda xiran ayuu yimid kadib magaalada meel banaankeeda uu istaajiyey magaalada banaankeeda markuu istaajiyey wuxuu dhahay inuu meeshaan ilaa waqtiga laga gaaro meesha iska sii joog meeshaan sii joogay kadib xilli 3 saac ay tahay oo yimid wixii diyaar waa qalabkaas oo diyaar ku maahan soo baxo way wadadana galis meesha hadaan tagan isma garanayno way meesha markaan tagay meeshaan saa u kala fiiriyay kadib meesha sidii calaamada leegu tilmaamay ahayd dadaan ciidan ku wareejisnaa kadib meel aan rabo inaan ka gala lama ogolaa leeyahay dhawa istaagay kadib mar lasli istaago shaqada ay dhamaatay aan soo dhaxmaray kadib meesha markaa u soo dhawaaday aan ku soo cararay markaan ku soo cararaan sida leeyahay qabtay meesha leeyahay qabtay kadib markii leeyahay qabtay wixii dadkii wixii aan wateen Ilaahay qadarkiisa mana dhicin anna Ilaahay uu badbaadiyay dadkeen Ilaahay badbaadiyay waqtigiina meesha ku dhamaaday dhamma cabdixakiin mustaf daahir waxa uu ahaa qofkii koowaad ee sarkeen ismiidaamiye maxamuud kana xeliyay goob uu doonayay inuu xafladda ka soo galo waxaana uu kadib ismiidaamiyuu isku dayay inuu ka galo xafladda haddana qaybta haweenka balse isla cabdixakiin oo kor kala socday ayaa haddana is-hortaag ku sameeyey waxayna taasi ku sii kordhisay wiilkan yar ee sargaalka feejignaan iyo inuu shaki ka qaado ninkan كلمة أركي نكان عبارة أصلا مرمريسان أركي إيش أنكوا هاي مركي أنتوا وركسي ولا أو هلا سعودي دغداغي سا قفكم مقتدر قوم مركو يقفكم بل وحين كذا إن كان سوق سوقر ومال كسعيد أنا أكون قانا يا شعب ولا وعس ولا سعود ولا وريق ماشي أنا ولا سوقر مركز كوريم عند صاحب ولا جالس كي وماشي هذا يستاك قبل واحد دورني كمسكين كم حكر بتاعي ده تك شعب كاي ماشي تشوف ورانو كان يسكن الداي عند أنا أساس سوقي markaasna nin cabaar meel ku soo nasto oo hayo lugaa waxa uga taal ciid guduud axmed ciidkaasna uu qabo kale uu dhididay lagu ka dhididay nin meel ka soo kaco ila ekaan markaas qof magaalada joogo ilama ekaan waa gartay markaasna irtaab waa laga shakiyaan saasna u taabtay aan meeshan ka taabtay aan waxa isii boshxabad nashaati lagama hoos mariyo maxay tahay isii boshxabadka aniga dib u fikir markaas saas iri aan dhaasaa meeshan waa laga shakiyay laabaan dhahay gaari tikniika aan dalbaday gaari tikniikada ay waxaan dhahnay aan ka shakiyaa meeshan joogay meeshan bal oo janiska helin meeshan galaanda dulasho culimada ku haday saas markuu ahay aan saas wax yar u dhaqaaqnay
waxaa dhaaqay culimadii markaas uu soo booditaankiin ku boodana adu muddo 2 saac meesha isku haysanay oo soo socday waa soo nimad hadana meesha dhow baan isla nimid waa isla laabanaa adigu muddo 2 saac meesha isku haysanay ka bacdi tali Cabdullaahi iyo tali Cabdinaasir oo meesha fadhiyay ayaa nagu soo baxay ما قفت ku qabateen marka 3 aan ku qabanay afar ninkii dambe oo markii hore sheekh la socday skuurtkiisa iyo laga sargaal ma shaki aad ku qabateen mise waxaad aragteen qarax markaas ana qiilshaba qarax waara qarax wadare aka marka waa ku dhiirateen inaad soo qarax wada qabato waa ku dhiirab aniga oo naftayda markaas ma xisaabin oo kula xisdhaa kale ninkan waa shacabka ka badbaadiye aka in shacabka ka badbaadiye gaashaanle sare Cabdullaahi Cali Raage ayaa ismidaamiyaha markuu isku dayay inuu orod ku galo goobta u qabtay garbaduub isagoo caawinaya askari kale kadibna waxaa dhabarka dambe ka qabtay wiilkii markii hore ka shakiyay oo soo xayrsaday una sheegay saraakiisha in ninkani qarax ku xiran yahay maalintaas horta waxay ahayd maalin shaqadii socotay waxay ahayd xaflad loo dhigayo degmadan saad u ogtahay waxay ahayd degmadii nimanka qawaarida oo shabaab kow la dirtay ahayd waxa lagu dhigaa xushka shahaadadii ahlu sunna wal jamaa lagu dhigaa waxaan u maleynaa bishii shanaad ay ahaydaan u maleynaa bishii saddexaad sanadkii hore sanadkan hadda aan ku jirnay ahaydaan u maleynaa bisha 17 Ramadaan ay ahayd maalintaas shaqadii way soo dhamaatay markii dhibaatadan u dhaceysay dhibaatada Ilaahay waa naga badbaadiyay laakiin arinta markay dhaceysay shaqadii meesha loo yimi way soo dhamaatay amnigu wuu adkaa ninkan wuu soo gali waayay soo ku sheegaba markii yaaci dambe oo kala tagi ahaa oo soo booday ninka xakan ka soo booday aniga halkaan taagnaa markaan taagnaa culimaduna markaa maba fadhin waa meesha waaba ka istaagtay ninkan qorshihiisa wuxuu ogaaday fashil inuu ku dhamaanayo ay dhamaata arintii marka uu isceli waayay wuu soo booday halkaan taagnaa yar la yiraahdo hadda aad u maleynaa in TV-yada ka aragteen oo la yiraahdo Joojoole ee ana halkaan isla taagnay uu soo booday Joojoole gacanta ka fakiirsiyo naga joog yiri marka Joojoole gadaal u tuuray ninkan yarka sargaalka intuu sheegay anigu ma aanan arkay waa iyaga isku maqnaa marka uu gacanta ga tuuray joog uu yiri ninkan uu yiri uu ka dambeeyay moogta talin ku qaraxo wadaha yiri waana ku soo booday anigu waxaan aaminsanahay ninkaani badhanka inuu taabar rabay laakiin ninkan uu gadaal uga dhigay saan gadaal soo uma qaban uu ka dambeeyay moogta qabashadiisa uu la waayay markaas ana labadiisa gacmoodan saa u qabta ka bacdi taliyaha yimid yarkan meenada iyo u qaabilsan tali Cabdinaasir tali ku xigeenkiina waa aha waa qabanna halkaasaan qabanay waa wada qabanaa ninkan markaas afartanada waa qabanaa saas uga jaray arintii arin aad marka shaqadina guul noogu soo dhamaata tan laftirkeeda dhagar qabuhu wadana laftirkeedu guul noogu dhamaata maalin aad u farxad badan ay ahayd oo shaqadii la waday iyo xuskiina la dhigay cadawgii dadkii ayaka gacantooda Ilaahay ku sababay darteeda nagama faa'iideysano Ilaahay waa naga badbaadiyay hadda maalin guulahay ahayd oo cadawgii isku soo dayga sameeyana la qabtay maalin aad noogu weyn waa ay tahay maalin haddana degmadan quraceel aad ugu sii weyn waa ay ahayd ninkan Ilaahay waa naga baxshay meesha lagu qabto halkaas ay ahayd ka bacdi dhagar qabaha kale asaga sheego saa lagu soo qabtay gaashaanle dhexe Cabdinaasir Manoole oo sargaalka u qaabilsan miinooyinka ciidanka ayaa markiiba isagoo isticmaalaya biisada loo adeegsado fiilooyinka korontada kala jaray aaladii isku xireeyay qaraxa taas oo ka dhigtay jaakadii mid aan qarxayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu guuleeyay waxaan sameeyay turkiiso iyo xirneed turkiisooyinkan wax lagu jaro fiilooyinka lagu jaro waxaan qabatiyay ka tartiib waxaan qabatiyay nayuutradii fiilooyinkii xariirsanay ee bomka telefoonka iyo isku dhiibayay wicitaankan awalum telefoonki iska jaray telefoonki markaan iska jaray hadana waxaan jaray mar labaad oo one by one oo labadooda hadii la isku taabto qaraxaasi hore ka qarxaya ilaa Britain waxay meenaysi balaaski isku gudbinaysaa qaraxaasi one by one markaan u gooyay telefoonkiina aan jaray waxaan ku wareeyay iska dhaafaa haddii hadda isqarxi kara jasta isqarxiye ilaa qarxi dhamaaba waa jireen jaakadeen xaadi uga siibna anako cabiidinayna wali sidaas ay ahayd dhacdadii meesha ka dhacday Ilaahay subhanahu wa ta'ala hana nagu guuleeyay iyo ciidamada oo aad u fiirjignaayo intaasi la fiirinayo qofkan dhaqdhaqaaqiisa la socday waqtigiina aniga taliyihii iga sareeyay taliye Cabdullaahi Cabdi Raage iyo anigiiba Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kalifay inaan isugu tagno ninkii bamka siday ayadoo ay noo muuqatay bulshada iyo boobalaha meesha jooga iyo inta ummad Soomaaliyeed ku baaba'aysa meeshaas ima ku waxyeeloobay waxaan ka door bidnay inaan nafta aan leenahay anako aan midaamin
ilaahay subxaana watacaalaana wuu nagu guuleeyey. maxamuud oo isaga laftigiisu u socday inuu maato xasuuqo waxa uu ku doodayaa in qaraxii 14 Oktoobar ee Soobe uu saameyn ku yeesho uu ku waayay saaxiibkiis. qarax uu ku dhacay markaas Oktoobar Soomaaliya xilligaas uu dhacay wuxuu ku gabar eedada abtigay uu qaba ku dhaawacantay wiil kale oo aan isku dugsi aan ahaan jirnay madrasada isla dhigan jirnay inuu ku tagay la ii sheegay yar meesha jooga loo soo sheegay ii sheeg Cabdinaasir ay dhahaan yarkan Arab la dhahaa leeyahay dhahay qarax magaciisa ahaan Arab nin Arab la dhahayo amniyo TMkaas gaarigaas inuu wada u maleynaa leeyahay dhahay bas yar oo shabaab asaas uu dhahay. sidoo kale nin ay qaraabo ahaayeen oo ay iskala mid ahaayeen al-shabaab ayaa lagu toogtay fagaare iyadoo lagu sheegay inuu jaajuus yahay. yar aan qaraabo aan ahaa jiro magaalada gabar markaas dhow gabar guursaday kadib muddo la daba joogay inuu ninkaas Mareykanka la shaqeeyay waxaas aan ku maqlaanay yarka ila dhashta ay soo wacay marka hebel waa la toogtay oo dhaaynayo waana tag yar Ayuub ay dhahan waay waa la toogtay oo dhahay waxa lagu toogay yaag baraw meel ay dhahan oo gobolka Baay ka mid ah lagu toogtaa shabaabna la shaqeynaa shabaab uu la shaqeynaa markii dambe waxa la Mareykanka u shaqeynaa hadda bishii saasa lagu idaacada laga sheegay oo dhahay yarkii ila dhashta ay soo wacay idaacada laga sheegay Mareykanka la shaqeynaa waa la toogtay ninkii ogaa saasa lagu toogtay ninkii hebel ah waa la toogtay dirsaam bixin isku dhaway. intaasoo dhibaato iyadoo ay ka gaartay al-shabaab ayuu maxamuud isna u soo baxay inuu ismidaamiyo oo xasuuqo maato kuwa kalena uu saameyn ku yeesho noloshooda maadaama uu ehelkooda ama asxaabtooda u socday inuu laayo waxayna taasi ka marakaxaysaa sida wiilkan yar loo maran habaabiyey isaguna hadda wuu aaminsan yahay in la soo marin habaabiye wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo. horta wixii ilaahay qadara diyaaraan u ahaa wixii wax walba qadar waaye markaan qarxa isku soo rarayba taas maalintaas inaan noolaan ay u maleynayaan ilaa hadda waan noolahay hadda tan haday ugu qadar wixii dhacan diyaaraan u ahay laakiin waxaan idin sheegay markaan inaan yaraayo nin yar aan ahaa anoo yarna dugsi madrasada aan dhigan jiray shabaab. xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada oo isku howlay baarista kiiskan ayaa codsaday dhageysiga dacwadda ka dhanka labada eedaysana 3 November waxaana laga aqbalay dhageysiga eedooda toddobaad kadib maxkamadda ayaa horgeynta kadib ballaamisay fadhigii labaad ee dhageysiga dacwadda 23 November. ugu horeyn gudoonka fadhiga maxkamadda ahna gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa u jeediyay labada eedaysana dacwad loo haysto. waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa inaad ka tirsan tihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta. eedaysanaha koowaad Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta naftii halige iyadoo ciidamada amnigu ay ku qabteen adigoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inaad isku qarxiso xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Guriceel 23 bishii shanaad 2019. eedaysanaha labaad Cali Dhubad Nuur Siyaad waxaa si gaar ah lagugu eedeynayaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta sahminta adigoo sahmiye xaflad ka dhaceysay Guriceel 23 bishii shanaad 2019 isla markaana hagayay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda. labada eedaysana ayaa fursad loo siiyay inay ka jawaab celiyaan eedaha loo haysto. maxamuud maxaa tiri dambigaas lagu haysto ma gashay wuxuu yiri waa ognahay waxa ka shaqeeyo waxa maamulka ka shaqeeyo waa inta oo huwa anaga waa ognahay intaas oo sanad maamulka u shaqeeyo waa ognahay ninka sabab jaamacadda ka soo wadin ee aadageyn shimbiro onshe madaxaaga ayaa ku weeyay sadaraadeen waa qalqalay meesha shimbiro shan keenay eeda san leeyahay anigu aad kalmari shabaabna maahi ma qacad ma raacsani kamidna maahi hadna raac ma waliga ma raac doono ninka shimbiro shan keenay eeda san leeyahay bis. xafiiska xeer ilaalinta oo isla maalinkaas jeedinayay eedda gabagabada kiiskan ayaa codsaday in lagu wada xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen labada eedaysana ee maxkamadda hortaagan. waa kan xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya Cabdullaahi Buule Kamey.
maxkamadda sharafka leh waxaan horkaynay cadaymo ku filan markhaatiyaalkii goobjoogga ahaa ee qabtay eedaysanaha oo isagoo ku xiran yahay fiilooyinkii ka jaray qiraalkii eedaysanaha kan kaloo labaad oo ah ninkii hagaayay oo taleefanadii ay iska waceen iyo saacadii ay wada hadlayaan hor maxkamadda horteedana ka qirtay maxkamadda sharafka leh horta waa yani wax mucjizo ah bani aadam intaa la eg oo wax dembiya aan kaa gelin in la xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharafka leh waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka aan ku soo eedaynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doona inay dad soo aadaan maxkamaddu waa mahadsanta qareenka u doodaya labada eedaysana ayaa maxkamadda weydiisay in loo naxariisto labada eedaysana oo mid kasta ay duruuf gaara ku riixaysay ficilkan foosha xun waa rag la wada khalday cali dhubad markii aan ka soo qaado waa nin loo hanjabay oo si khasab ah kuwa ninkaa liiday cali dhubad naftiisa ayuu ku badbaadsanayay mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh dhammaantood waa rag la wada qalday waana rag wada dhallinyaro ah oo dalka mustaqbalka leh maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in ay u naxariisato ay u fiiriso sifaalaha dembiga fudeeyo maxkamadduna waa mahadsantahay heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn xukunka labada eedaysana kaga dhawaaqday magaalada Dhuusamareeb 24 November. bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal 1 maxamuud cabdi cabdiraxmaan 23 jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay Saakow 2 cali dhubad nuur siyaad 46 jir ah ina maryam faarax cabdulle ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed waxa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Guriceel 23 bishii sanaad 2019 eedaysanaha labaad cali dhubad nuur siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta una sahmiyay xaflad ka dhaceysay Guriceel 23 bishii sanaad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen Guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyay goobtii xafladda ka dhaceysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuur siyaad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqeysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada Ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo Guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladii markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhaceysay Guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakada qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuur siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dambe muujinta ah 1 dukumeentida ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane 2 taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane 3
jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad. markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 1 dambiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan 2 dambiile shabaab cali dhubad nuuro siyaad ay wada yihiin dambiilayaal gale dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan. wabilaahi tawfiiq. guud ahaan barnaamijkeenni gungaar oo dhinaca farsamada iyo duubistaba ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise iyo carab cabdiweli waa naga intaa. tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanta.